dagaalka wuxuu u dhaxeeyaa muxuu ahay nimanka la yiraahdo koonfur galbeed oo la dagaalanka shabaab aan raalli ka ahayn oo muxuu ahay ciidankii maxaawisleyda duufaanta Sheekh Xasan Barsane weerar ku qaaday oo biriyahan oo dhan diyaarada isku soo daadgureynay nimankaas dagaal muxuu ahay dagaal qabiilo hore u joogsadeen soo cusboonaysiiyay ciidankii maxaawisleyda duufaantana weerar ku qaaday ilaahay ninkiis guul siiyaba waa hadda dagaalka uu socdaa saaki shantiyaas bilowday ilaa hadda uu socdaa muxuu ahay saraakiishii oo waxaana horkacaya muxuu ahay qabaa'ilaadka iyo qabiilkan koonfur galbeed isleeysiiyey ayaa horkacooyo ilaahay ha qaboojiyo aniga hadda wax kama dhihi kara malaha siyaasadda dowladda federaalka ee ka shaqeeya waxa weeyaan muxuu ahay maxaawisleyda la dhiirigeliyo maxaawisleyda in la weeraro ma ayna talada kuma ayna jirin marka koonfur galbeed ma ogolo in muxuu ahay shabaab lala dagaalamo ma ogolo maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in ciidamadaasi dadka deegaanka iyo gawaarida halkaasi maraysa dhibaato ku hayaan shabaabna aysan la dagaalamin maleeshiyada deegaanka isku aruuriyeen ay yihiin arrintaas maxaa ka jira meesha kaliya inuu joogne waxa jooga xataa saldhiga ugu weynaa Ameerikaanka joogo hal weydiyo ciidamada danawa joogo hal weydiyo waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan shalayto taliyaha ciidamada danab wuxuu yiri oo halkaas ka yiri war ciidankan maxaawisleyda daraadsan leh laba nimo shabaab gacantooda ku soo qabtay qaarna ku soo dilay way loo dagaalamaya حتى ولا وقتينو البوركي بلدوغل الماضي أي كسر قرينا ولا جوجي بس كلا في المكان وركول ما كي دبوا حي بالعدين إن باشا شنت على موضة أي بقول كقالان تفكي على غفالة يا كاري دقال قال له غفالة يا وحاسوا محوها all the fashion محوها أنا هذا لما أنت إسماعيل دكتاني أنت يهلاني أين جرم حتى وحاجرة إني حلبان الجوغان بلدوغل أو قبيلتي محواش على موتي قال جالك يدبوا هشيسين وصمينا الليل وحاصل نبغى لك ما مكان وحاوي maxaawisleydu way ka gudbay qabiilay u gudbaysaa laba qabiilaan nahay beelaha muxuu digli mirifle iyo anaga laba qabiilaan nahay qabiilkan hadda maxaawisleydooda loo dagaalamay qabiil landeed oo wiiliraad ka dhasheen marka ayaga yaqaanaan beertii ay afuufeen ay ku gubanayeen hadda yaa qaadanaya marka mas'uuliyadda deegaankaasi dagaalka ka socda khasaaraha ka dhashay maadaama ayaga qaadanaya هل ويدي عالم كهل ويدي محوها سلقينا ماشي كويا هل ويدي يجا خالناي عيد النبض هو قال ما شلنا تنا شباب يسوقتين مالين وحد يحرين شباب يسوقتين عيد المالين والشباب تقالوا معي ما حاولوا ما فلاو اللي ذا والله تقالوا صح ما إيه قبيلة هوري وصدق على ما أي وحي كانونا بقول شنت عليه ما ذا يراد المشبه من بقول هلا كير أودك الغفالة يا والله تمايا واختيار لي وحي كان أنا أي لي مسؤولينta deegaanka ayaa tihiin soo lama haboonan in colaadaasi laga hortago oo deegaanka hadda xildhibaanada dib u heshiisiin wada ay joogan meesha وحلوان سنتر حلوان عبد النور سنتر سمسم محوها حلوان على قاب رقاصو مركي بيضاء تجي أو دبواشي سين وضي أو لصوق من لفت قرين أي جو بلدوغلي كجران مركز دقال كان معي شلون ما إلهي وردقال وكاشيني ملحويني عمرو وسوبحي جوغ مية ساكر وين رئيسو قادين haye marka hada mas'uuliyiinta dawladda ka tirsan ee maamulka koonfur galbeed ayaa la sheegay